2022 ee Somaliland musharax Cabdi Saleebaan Jaamac Kiniin oo astaantiisu tahay furay iyo musharax Cabdiraxmaan Axmed Cali oo isna lambarka codeyntiisu tahay 106 oo la hadlay kumanaanka taageere ee saaka isugu soo baxay Khayriyada Burco ayaa u ballan qaaday reer Burco haddii ay doortaan in ay ka shaqeynayaan danaha gobolka iyo danta degmada Burco. waxa weeyaan astaantaydu furaha magacaygu Cabdi Saleebaan Jaamac anu dal mushaaxid baan ahay aabahay dhigiisu tan huray una dhintay maanta waxaan doonayaa aniguna inaan dhiigkayga u huro oo wixii tacab aan geliyo oo aqoonteeda geliya baan doonayaa halkan sharcigu inuu sareeyo loo baahan yahay in cadkan gobolka loo soo galay baa loo baahan yahay ballanqaado badan baad ka maqlaysaan oo xisbiyo badan baa ballan qaadaya oo rag badan musharaxiin ah ballan qaadaya laakiin runtii nin u soo agoomay baa garanaya tan baahideyda nin u soo agoomay ayuu baa garanaya baahideyda anu waxa rabaa inaan hiiliyo maanta saabirtoola maanta waxa rabaa hiilisaan saabirtoola lagu hiiliyo taasaan doonaya astaantaydu waa furaha waa furihii waxa weeye wax qabadka weeye gobolkan waxaan daraaban yahay waxaa loo baahay inay dowladda Somaliland hargeysa soo dhaafto oo noqoto mid gobolkan soo gaadha furaha sanadiisina ugu ballanqaada inay maanta soo saaraysan sanadka lagu yidhi insha Allah. Zakariya Sidiisi telefishinka Sahan Burco. labada musharax ee isku sidka Cabdi Saleebaan Jaamac Kiniin iyo Cabdiraxmaan Axmed Cali oo ku astaysan calaamadda furaha iyo nambarka 106 oo qayb ka ahaa ololaha maalinta labaad ee xisbiga Wicid ayaa magaalada Burco ku soo bandhigay codadda taageeradooda taageerayaasha labada musharax gaadiid tiro badan bahda baanbayda iyo wacdaro kale oo ay muujinayeen taageerayaasha labada musharax ayaa qayb ka ahaa ololaha xisbiga Wicid ee saaka labada musharax oo taageerayaasha la hadlay ayaa fariimo isu huwan u diray bulshada ay codka ka rabaan dadka ay idinku muunada u tihiin ee ka turjumaysa magaalada u joogtaan ee taageerayaashana ay miisaanka ay leeyihiin waxaan rajaynayaa in miisaankaasi idinka muuqan doono maalinta 31 May ee loo dareerayo codeynta insha Allah taala qaar waxay ku xisaabtamayaan miyaad soo bixi mise waad soo bixi waayey laakiin inagu waxaynu ku xisaabtamaynaa codka baaqiga ee naga noqonaya tooyo ku soo bixi doona insha Allah taala inaynu haru guureynana waxay ka muuqataa sida ugu heelantihiin taageerada milcida u taagantihiin wacyigelinta u samaynaysaan waliba aan ogahay inaad xafiisyada kale aan isku xisbiga nahay aad ka howlgashaan oo caawisaan maanta Burco maaha insha Allah Burco aynu ka dhigi doonaa waxaanu ka dhigi doonaa magaalo u eg magaalooyinka waaweyn ee dadka smartka ah ama xaragoonaya ay ku nool yihiin qabadku wuxuu ahaa inuu magaalada jooga oo cashuur ku bixiya inuu arday walba iskuulkiisa waxaan ku wari halka macalinku mushaarkiisa buuxo helayo haday noqoto agabkii waxbarashada haday noqoto caafimaadkii haday noqoto biyihii wax walo inaga xiran dawladda dhexe ma aha mid aad ka baryaysid oo mid xaq u leedahay dastuuriya oo muwaadin wadanka u dhashay baa tahay dawladnimadu horta saddex bay ku dhisan tahay waa cadaaladda waa fulin waana sharci dejinta mid baa runtii soo raacda waxa la yiraahdaa saxaafadda leenahay ee cadaaladdu wadanka runtii kama shaqayso fulintu haday islaamnimada wadadaasi ka xumaato xorta madaxweynaha noola hadla waxay ahayd inay xaqeeda ku hesho magaaladeeda oo Cabdiraxmaan Damaar u doorataan insha Allah uu kaga jawaabi doono baahiyaadka magaaladan aniguna wixii sharci dejina insha Allah Ilaahay uu gooleeyo haday noqoto xeer number 12ka
waxaan ku kastamkii magaaladan ama degmadan Burco iyo gobolkan Togdheer xaq u lahaa berbere la geeyay runtii inuu waxa weeye sharciyaadka dalkani ku dhisnaado xaq oo ku dhisnaado cadaalad oo dadka si sinaan iyo cadaalad ugu dhaqo oo u sinaanaan weeye haday dagaalkii wadanka loo soo maray halgankii loo soo maray noqoto gobolkani lixaad ayuu ka qaatay intiina dhalinyarta halkan joogta ee aqoonta leh waa ina maanta la xisaabtantaan dawladda Hargeysa maaha dawladda Soomaaliland waa dawladda Hargeysa waxa maqla jirtay markuu siyaasigu muraadkiisa ka waayay xisbi waxa la oran jiray ka digarogtay gobolkan waxa loo baahan inuu ka digarogto waa doorkii cid iyo doorkii dhalinyarta weeye nin afkiisa la xishooda ama afkabaadsiyo beerlaxawsi iyo af macaan iyo af siyaasi idugulama hadlaya anigu waxay hayeen wax xanuun weeye xanuun iyo damqasho ayaa aniga maanta halkan marinaya haddii dareenka idigu jiro oo isbedel doonaysaan fartiin ayaan idin eedin mar labaad waxa weeyaan waa inaynu si hiile oo mugle oo miisaan leh aynu codka u siinaa waa inaynu maalinkan maanta hayna waxba ka akranin waa inaynu halkan iyagu doonayaan ee ilaahayna raallida ka yahay aynu dhignaa haddii ilaahay yiraahdo waa inaynu dhignaa waa inaynu ficilkeena tustaa Somaliland waa inaynu raganimadeena iyo xiliyaheena tustaa Somaliland waa inaynu nimadeena kuraasida ku fadhiisnaa ilaahayna la qabtaa waxa weeyaan maalin walba waxa weeyaan oday 8 jira ayaa khadiyaan ilaahay naga dhigay oo meel alla meel u soconayaan aan jirin waa jaaniskeeni maanta walaalayaal jaaniskani waa jaaniskii dhalinyaradu lahayd marka waxa loo baahan yahay dhalinyaro ahaan aynu ugu hiilino labadan